وحنا هاي نفسيه وحنا هاي نفسيه نعوق قولي من غيوب الواقي ثبته نجادي نور الشفاء لوبي نعسوكم التقل نبرد قرطوليو معاني قاهدينيو يقول بين فضا نبرد ما وداقي نعو قبويو نمعيو برواقيو سبلغو نقاديو نور شبائلو بي نعسو قميسيقن نبردا الحقيقة ألف ليدة دب ليدة هالكان كسوغن صحافة يقود هان مرت شرفك كسو قيب قلي مالنتان كنتي آدك مهمك هو waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa in allaala iyo intii soo agaasintay xafladan quruxda badan ugu horeyso agaasimaha wasaaradda iyo tiimka wasaaradda intaba runtii waxaan isleeyahay waa waqtiyo u baahan in la xuso muxuu ahaa ii sheeg lagana shaqeeyo waxyaabaha runtii muxuu ahaa ii sheeg aadka muhiimka ugu ah bulsho kasta ee caalamka ku nool marka waxaan runtii ka talis ahaan iyo ka wasaarad ahaan iyo ka dawlad ahaan intaba insha Allah taala horana u xoojinay haddana aan xoojin doonaa in lagu dadaalo dhammaan waxa laala iyo wixii muxuu ahaa ii sheeg ku ah caruurta meel kastoo ay joogaan iyo jinsiyad kastoo ay yihiin wixii xadgudub ku ah sida qawaaniinta caalamiga ah ay qabto ama shuruucda caalamiga ah annagoo taas muxuu ahaa ii sheeg tixraacayna ama muxuu ahaa ii sheeg fulinayna in aan muxuu ahaa ii sheeg xaqiijino badqabkooda iyo muxuu ahaa ii sheeg badbaadintooda intaba runtii markaan ku soo laabto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan la soconaa marxalado runtii aad u adag oo aad muxuu ahaa ii sheeg u dhib badan oo soo maray haddana iyadoo sidaas marna ma suurta gelin in ay raali ka noqdaan ayagoo kaashanaya wasaaradooda iyo muxuu ahaa ii sheeg dawladda intaba in ay marnaba ay ogolaadaan in caruurta Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay dhibaato gaarto ama marnaba ay raali ka noqdaan in muxuu ahaa ii sheeg bulshada qaybaheeda kala duwan dhinacay doonta ahaato ay muxuu ahaa ii sheeg ay raali ka noqdaan inay dhibaato gaarto marka runtii aad iyo aad ugu mahadcelinaa in allaala intii soo agaasintay xafladan waxaan leeyahay arintaas taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed way ka go'an tahay inay runtii ay muxuu ahaa aad ay uga tacadiraan ka hortagaan dhankay doonta ha noqoto marka loo soo laabto marxaladda maanta dalkeenu ku jiro iyo caruurta la gelinayo dagaalka la gelinayo waxaan dareemi karnaa nimankan burcadiimeedka ah oo ummadda Soomaaliyeed u diiday harsashadii iyo hargalkii intaba u diiday nimanka ayaan isleeyahay waxay mudan yihiin runtii in laga qabto caruurta Soomaaliyeed waxay muxuu ahaa ii sheegay baabi'iyeen mustaqbalkoodii waxay baabi'iyeen waxbarashadoodii iyo muxuu ahaa ii sheegay badqabkoodii waxay baabi'iyeen caafimaadkoodii marka kuwaas ayaa u baahan runtii in muxuu ahaa dabcan ayagu in laga wacyigeliyo ma mudna in laga qabtay mudan yihiin sidii looga qaban lahaa in laga fikiro kuwaas mudan marka ciidanka Ilaahay ayagana muxuu ahaa ii sheegay caruurta Soomaaliyeed oo ay dhibaatada ku hayaan oo ay muxuu ahaa ii sheegay afduubka u heestaan oo waalidiintii dhashay iyo muxuu ahaa ii sheegay qoysaskoodii ay afduubka uga heestaan kuwa badan hore waa looga badbaadiyay kuwa kalena waxaan isleeyahay waqtigoodu waa soo dhamaaday mana u suurta gali doonto insha Allah taala inay sii heestaan marka
waxaan isleeyahay in arrintaas oo ay runtii si dhab ah inooga go'an tahay kana shaqay doono aad iyo aad u mahadsantiin waqtigoon ugu gaaban iyo shaqooyin badan oo noo yaala dartood aad iyo aad ugu mahadsan yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jenaraal Yusuf Raage agaasimaha ee wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliyeed Mr. Jihaan iyo taliyaha ciidanka ee dhulka iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan bahda ka socota UN-ka iyo bahda kale ka socota xaqiiqdii international NGOs-ka iyo waaxda runtii qaybta ka hortagga askaraynta carruurta dhammaantiina shaqaalaha wasaaradda dhammaantiina qof kasta protocolka ugu fadhiya ayaa waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بعد السلام هذه هذا ما سيناي صاحبك غالي ولالك دو يوسف راجع سيجا يا كدواجي حقيقي وحى دولة الصومالية رنتي كقوان تاي سيدي أي لو إلى لها رنتي قضبضة قصية لحدة تير كواستيسن ama UN Security Council-ka ay soo saareen in la ilaaliyo ay ka mid tahay ka hortagga ama joojinta askaraynta iyo adeegsiga carruurta askaraynta iyo wax la mid ah si loo joojiyo kufsiga iyo noocyo kasta oo xadgudub ah jinsiga oo ka dhanka ah carruurta weerarada runtii ka dhanka ah sidoo kale ama afduubka carruurta horjoogsiinta gurmadka bini'aadanimada loo sameeyay carruurta dhammaan wixii arrimahaas kuseeyo maanta oo 12 Febraayo runtii waa maalin ku astaysan maalinta gacanta cas oo u beegan in lagu ilaaliyo carruurta xaqiiqdii dowladda Soomaaliya jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed waxay ka go'an ama ay committed ku tahay sidii loo ilaalin lahaa carruurta carruurta waxay ka mid yihiin mustaqbalka dalka waxay ka mid yihiin aayaha dalka runtii dal wuxuu ku xisaabtamayaa jiilka soo koray waa madaxda mustaqbalka marka waxaa ka go'an dowladda sidii loo ilaalin lahaa looguna dadaali lahaa sidii ay waxbarashadoodii iyo aqoontooda lagu kordhin lahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida aad la socotaan wuxuu soo maray marxalada aad iyo aad u kala duwan laakiin maanta wuxuu soo gaaray marxalad aad iyo aad u qiimo badan kadib markii runtii ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed ama ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed dhammaantoodaba ay systemka la geliyey taasoo macnaheeda ay tahay inaysan jirin wax carruur ay da'dooda ka yartay 18 jir aanu aaminsannahay waqtigan cidda isticmaasha carruurta ama dhibaato ku gaarsiisa ummaddan Soomaaliyeed waa ururka xagjirka ee al-shabaab iyo daacish oo dhammaantooda u adeegsada carruurtaas oo maskaxdooda aan soo korin si ay u isticmaalaan inay ku baabiyaan ummadda barnaamijyada ah oo waxba galabsan runtii insha Allah ta'ala kuwaasna sida hadda taliyayga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu ka dhawaajiyay in badanna lagala dagaalamay inta kale waxaan insha Allah ta'ala aan ku guuleysan doono waqti dhowna ummadda Soomaaliyeed ay gaari doonto meel runtii aad iyo aad ay ugu faraxdo iyo in ay dalkan gudihiisa aysan ku jiri doonin ururo oo runtii u isticmaala carruurteena ama guud ahaan dhibaateeya shacabkeena Soomaaliyeed runtii aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin waxaan runtii aan u mahadcelinayaa agaasimaha wasaaradda gaashaandhigga iyo tiimkeeda waaxda ka hortagga askaraynta oo waqti badan geliyey soo diyaariyey xafladan quruxda badan runtii waxaan rabaa inaan u cudurdaarto bahda hoose oo runtii maanta ay diyaarisay qorshe aad iyo aad u qurux badan insha allahu taala waan daawanaynaa mid kalena shaqana loogu wacayni taliyaha marka waan idin cudurdaaranaynaa in aan waqti badan aan gelin weyno marka taas intaas ayaan ugu baxaya
waxaan runtii u mahadcelinayaa UN Security Council qaybteeda child protectionka ama CAC working group oo iyagana runtii fikrado badan geliya waqti ku bixiya dhaqaale ku bixiya sidii wacyigelin badan loogu sameyn lahaa carruurta yaryar iyo guud ahaan in la isticmaalin arrimaha runtii 6 gradeska aan loo isticmaalin aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin and we are committed as the name of the government dowladda magaceeda iyo guud ahaan iyo anigoo ka hadlaya waxaan xaqiiqdii aan commit garaynaynaa in aan carruurta loo isticmaali karin oo da'deeda ay ka yartahay 18 jir askarayn runtii taas muuqaalkeeda waa cad yahay aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu